shayga ugu muhiimsan ee noloshayna shayka muhiimsan noloshayna oo idil kaasi waa waqtiga oo kaliya Dr. Ibrahim Al-Fiqi Allah u naxariistay waxa uu ku yiri buugiisa maareynta waqtiga dhageystow ama akhristow ma garanaysaa noloshaada wax ka qiimo badan jawaabta ku soo baxaysa adigan idaawanaya waa maya haddaba waqtigu waa noloshayna waqtiga oo la dayaca waa noloshayni oo aynu luminay la soco waqtigu degdeg ayuu inoo dhaafayaa sida daruurtu inoo dhaafto oo kale waxa uu u ordaa sida dabayshu ay u ordo oo kale waqtiga ka tagayna waligii ma soo noqdo daqiiqad waliba saacad waliba sakan waliba macquul maahan inaad soo celiso suuragal maahan inaad waqtiga bedelkiisa hesho la soco shaqo walba oo uu aadmigu sameeyo waqtiga ayaa gundhig u ah su'aal cajiib ah maxaad samayn lahayd haddii aad ogaato in noloshaadu ay ka hadhay oo kaliya 6 bilood waan filayaa in ay tahay su'aal naxdin leh balse xaqiiqda dhabta ah ay inoo iftiiminaysaa haddii aan ogaan lahayn in waqtigaasi yar ay nolosheena ka dhiman tahay yaad waqtigaaga siin lahayd yaad waqtigaaga la qaadan lahayd maxaad samayn lahayd oo maxay ahaan lahayd shaqada aad qaban lahayd xilligaas ama xilliga aad ogaatay in noloshu ay kaaga dhiman tahay 6 bilood oo kaliya ka jawaab intaasi waxaan rajaynayaa biidinillah inaad isbedel dareemi doonto isxisaabi intaan lagu xisaabin shayga ugu muhiimsan ee aad ka faa'iideysan karto waa waqtiga ilow kalimada ah waqti ma hayo waqtigu waa sayf inta uusan ku jarin jar is adkay oo is aamin nabadgelyo